Ethiopia's regiment commander in Somalia, Colonel Gabriel Zabir al-Msagid, also known as Gabriel Dilla, has been arrested. He was also a former... wakaaladaha wararka ee dalka Ethiopia ayaa sheegay ciidamada booliiska dalkaasi ay qabteen Colonel Gabriel Sagar oo Soomaalida u yaqaaneen General Gabriel oo ka tirsanaa ciidamada Ethiopia isla markaana la taliyay hore xogayaha urur goboleedka IGAD sida ay sheegeen booliiska ayaa ay qabteen hotel ku yaala duleedka magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia. The colonel is accused of human rights abuses in the Somali region of Ethiopia and alleged to have coordinated the recent deadly violence in the regional capital, Jijjiga. TPLF's point man in Mogadishu for years. lagu eedeeyay General Gabriel inuu ka geystay ismaamulka Soomaalida Ethiopia gabood falla ka dhanka bini'aadanimada sidoo kalena waxa lagu eedeeyay in Soomaaliya uu ka ganacsan jiray hubka una u gudbin jiray hogaamiye kooxeedyada Soomaaliya ama hogaamiyaashii Soomaaliya ka jiray. General Gabriel ayaa ka tirsanaa ciidamada militariga ee dalka Ethiopia isla markaana ahaa la taliyay hore ee xogayaha ururka goboleedka IGAD sida ay sheegeen. General Gabriel ayaa hogaaminayay ciidamadii Ethiopia ee sanadkii 2016 gudaha Soomaaliya soo galay. ciidamadaasi ayaa ka geystay xasuuq ba'an sidoo kale barakac baahsan. ciidamadaasi ayaa markii dambe ka mid noqday ciidamadii ururka AMISOM ilaa haddana waxay joogaan gudaha dalka Soomaaliya. General Gabriel wuxuu ka tirsanaa jabhaddii CPLF ee wuxuuna saameyn xog ku lahaa siyaasadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. General Gabriel ayaa saameyn weyn ku lahaa siyaasadda Soomaaliya. Generalka ayaa qorsheynayay inuu u baxsado dalka Kenya. wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed oo Jufa freelance journalist dulqaad media.net